dhammaan gacalayaal waxaa hadda xoog u kordhay faafidda cudurka ee Norway. Maalmihii u dambeeyay waxaa la arkay tirooyinka faafidda cudurka oo gaadhay meeshii ugu sarreysay guud ahaan muddadii cudurku socday. Carruurta, dhalinyarada iyo dhalinyarada waaweyn ayaa faafidda si gaar ah ugu badan tahay. In badan oo kor u kaca faafidda ka mid ah waxaa sabab u ah iskuullada iyo isu imaanshooyinka dadka. Toddobaadkii hore dadka jira 13 ilaa 19 sano ayaa ugu badnaa qaadista cudurka. Faafidda ayaa sii badan karta haddii la kordhiyo dib u furidda bulshada. Ma rabno intaasi dhacdo hadda oo ay wax yar ka dhiman yihiin marka ay dadka waaweyn oo dhan heleen fursadda istalaalista. Taas darteed waxaa lagu sii jirayaa wejiga saddexaad ee qorshaha dib u furidda ilaa inta ay kordhayso tirada dadka si buuxda u talaalan intaan loo gudbin nolol caadil ah oo leh heegan dheeraad ah. Weli si buuxda looma furin Norway. Waxaan idin xasuusinayaa talooyin iyo xeerar muhiim ah oo weli jira. Guriga ha la joogo haddii la xanuunsado, gacmaha ha la nadiifiyo, dadkuna ha kala fogaadaan, xataa marka si buuxda loo talaalan yahay. Intii cudurku socday, carruurtu guryaha ayay wax ku baranayeen, waxaa seegay waxbarasho, waxaana ku yaraa la xidhiidhka dadka. Maadaama hadda dad badan la talaalay, waxaanu aad u rabnay in carruurta iyo dhalinyaradu ay xilliga iskuulka oo dhan joogaan iskuulka oo maalmahoodu caadi noqdaan ilaa intii macquul ah. Haddase marka la eego kor u kaca tirooyinka faafidda, warku wuu cad yahay. Dib u furidda iskuulladu ma noqonin sidii aanu rabnay ee moodanay xilligii xagaaga. Meelaha faafiddu ku badan tahay waxaa ka jira xaalad aan la isku halayn karin. Carruur badan ayaa mar kale in badan ka maqnaa iskuulka. Lama rabin in xaaladdu sidan ahaato xilligan la marayo. Nasiib wanaag, carruurta iyo dhalinyarada cudurka qaadaa aad uma xanuunsadaan. Inkastoo aanay badnayn carruurta iyo dhalinyarada aad u xanuunsata, isla markaana carruurta iyo dhalinyaradu si wacan ugu adkaysan karaan fayruska koronaha, hadda waan fahmi karaa in dad badan hadda qabaan werwer iyo deganaansho la'aan. Qaadista tijaabooyin badan, su'aalo badan, qorshe la bedelayo iyo qabanqaabooyin la baajinayo ayaa imanaya. Waan fahmi karaa in ardayda, waalidiinta, macallimiinta iyo maamulada iskuulladu ay xaaladdan u arkaan mid culays leh. Waana wax jira oo dhab ah. May noqonin dib u bilaabid iskuul oo badanaa ardaydu inta ugu badan joogaan iskuulka oo ahayd sidii aanu rabnay. Waxaa khaldantay qiyaastii aanu samaynay markii aanu moodnay in iskuulladu u shaqayn karaan qaabkan iyadoo ay jirto fayruska deltada ee si fudud loo kala qaado. Taas darteed waxaanu hadda wax ka qabanaynaa xaaladda carruurta iyo dhalinyarada. Haddaba waddankoo dhan kama sina faafidda cudurka. Taas darteed waxaa weli nala saxsan in meelaha cudurku ka dilaaco lagu soo rogo tallaabooyin u gaar ah. Dawladdu waxay rabtay in dayrtan iskuullada dib loo furo iyagoo ku jira heerka cagaarka ah. Waxaa jira goobo badan oo arrintaasi weli ku habboon tahay. Laakiin meelo ka mida waddanka waxay keentay in faafidda cudurku kor u kacdo. Heerka huruudda ah ayaa wacan in la isticmaalo haddii uu keenayo in ardayda wakhtiga ugu badan joogayso iskuulka marka la barbar dhigo heerka cagaaran. Waxaan taas darteed degmooyinka uu cudurku ku badan yahay ku boorinayaa inay iskuullada geliyaan heerka huruudda ah haddii ay kor u qaadayso tirada ardayda joogta iskuulka iyo tayada cashar bixinta. Degmooyinka cudurku ku badan yahay ayaa mar kasta xidhiidh la leh macadka caafimaadka dadweynaha iyo agaasinka caafimaadka. Waan ku kalsoonahay in degmooyinku qaadan doonaan go'aamo habboon oo caqligal ah. Waxaan degmooyinka ku ammaanayaa sida ay uga soo baxeen howlaha waaweyn ee muhiimka ah ee talaalista, tijaabo qaadista iyo raadraacista cudurka. Laakiin si gacan looga geysto joojinta faafidda cudurka, waxa habboon in qof kasta soo degsado abka SmithStop. Annagu waxaanu qiraynaa in aanan degmooyinka si ku fulan ugu diyaar garaynin talooyinka ku saabsan in tijaabo qaadis lagu bedelo karantiilka marka iskuullada la furo. Kadib markii aanu talooyin ka helay khubarada, waxaanu wax ka bedelaynaa howlaha tijaabo qaadista, go'aan bixinta, raadraacidda faafidda iyo karantiilka waa waxyaalaha loo yaqaano TISC. Laakiin degmooyinka ayaanu kala tashan doonaa arrintan intaan wax ka beddelkan la dhaqangelin. Taas darteed ayuu wasiirka caafimaadka iyo daryeelka kulan arrintan ku saabsan la yeelan doonaa guddoomiyaasha gobolka iyo degmooyinka. Agaasimaha caafimaadka Bjørn Guldvog ayaa faahfaahin doona arrintaas.
waxaynu ognahay in talaalku yahay waxa lagaga bixi karo cudurkan safmarka ah hadafku wuxuu yahay in la talaalo 90% dadka 18 sano ka weyn hadda 71 dadka ka weyn 18 sano ayaa si buuxda u talaalan 90% dadka 18 sano ka weyn ku dhawaad 90% ayaa ugu yaran hal irbad oo talaala qaatay waa tiro aad u wacan waxaynu se ognahay in marka laba irbadood la qaato si dheeraad ah looga difaacan yahay faafinta fayruska deltada marka la barbar dhigo hal irbad waxa wacan in dadka hadda qaadan kara irbadda labaad ay sida ugu dhaqsaha badan qaataan dawladdu waxay macadka caafimaadka dadweynaha iyo agaasinka caafimaadka u xil saaraysaa inay eegaan in shahaadada koronaha cagaar laga dhigi karo keliya marka labada irbadood baa la qaatay weli lama go'aamin laakiin waa muhiim in la eego dawladdu waxay go'aamisay in talaalka la siiyo carruurta iyo dhalinyarada u dhaxaysa 12 iyo 15 sano macadka caafimaadka dadweynaha ayaa eegay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka arrintan uga imanaya carruurta iyo bulshadaba waxay garteen in la soo jeediyo in dhammaan carruurtan iyo dhalinyaradan ay qaataan talaalka dawladdu macadka way ku raacsan tahay soo jeedintaas talaalku si wacan ayuu carruurta uga difaacayaa cudurka waxa yaraanaya xadidnaanta cudurku ku keeni lahaa noloshooda isla markaana waxay gacan ka geysanaysaa difaacista dadka nugul iyo yaraynta faafidda carruurta iyo dhalinyarada u dhaxaysa 12 iyo 15 waxaa marka hore loo fidinayaa hal irbad oo talaalka ah waa si waafaqsan talada macadka caafimaadka dadweynaha waxaanu sugaynaa talooyinka dambe ee ka yimaada macadka caafimaadka dadweynaha ee ku salaysan natiijooyinka ka soo baxa halkan iyo wadamada kaleba ka hor intaan la go'aamin in la siiyo irbadda labaad laakiin istalaalistu waa ikhtiyaari sidii ay weligeedba ahaan jirtay waalidka ayaa leh go'aanka rasmiga ah ee ku saabsan in la talaalo ilmaha laakiin waa in aragtida ilmahana la dhegaysto hadda talaal badan ayaynu haysanaa inkastoo ta ugu muhiimsani tahay in si buuxda loo talaalo dadka waaweyn iyo in 16 iyo 17 jirka la siiyo irbadda koowaad haddana degmooyinka way bilaabi karaan talaalista dhalinyarada jirta 12 ilaa 15 sano jir macadka caafimaadka dadweynaha ayaa faahfaahin doona go'aanka talaalista dhalinyaradan inkastoo lagu sii jirayo wejiga saddexaad haddana waxaynu ku soconnaa maalmo caadi ah oo leh heegan dheeraad ah xilliga ay noqon doonto waxaa lagu salaynayaa xogta ee lama sii cayimayo wax taariikh ah arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in aynu u dhownahay hadafkii ahaa in 90% dadka waaweyn si buuxda loo tallaalo marka si wacan loo xakameeyo xaaladda iskuullada waxaanu isleenahay waxaa loo gudbi karaa xaalad aanu u bixinay maalmo caadi ah oo leh heegan dheeraad ah marka si kale loo dhigo hadda la geli maayo wejiga afaraad doorka dambe ayaynu ka gudbaynaa xaaladda maanta oo u gudbi doonaa maalmo caadi ah oo leh heegan dheeraad ah haddii aan idin xasuusiyo wejiga ah maalmo caadi ah oo leh heegan dheeraad ah waxaa lagu soo koobi karaa 2 qodob tallaabooyinka heer qaran ah intooda badan waa la joojinayaa waa in aad weli ilaalisid nadaafadda gacmaha iyo qufaca oo aad guriga joogtid haddii aad xanuunsato oo aad tijaabo iska qaadid markaad talooyinku sheegaan dadka jooga meelaha aan cudur ka dilaacin ma dareemi doonaan wax badan isla markaana hay-adaha dawladda iyo degmooyinka ayaa si dhow ula socon doona xaaladda si tallaabooyin degdeg ah loo qaado haddii xaaladdu isbeddesho dawladda hay-adaha caafimaadka cisbitaalada iyo degmooyinku waa inay kordhiyaan la socoshada xaaladda iyo heeganka bishan dhammaadkeeda ayaynu halkaas gaadhi karnaa sida la sheegayse arrintaasi waxay ku xidhantahay xogta ee kuma xidhna taariikh dadka sababo kala duwan dartood dib u dhigtay talaalka waxaan u sheegayaa faafidda cudurku kor ayay u kacday inta badan dadka cisbitaalada la dhigay waa dad 18 sano ka weyn oo aan tallaalnayn qaar badan ayaa ka da'yar dadkii berigii hore la dhigi jiray waxaynu maqalay wararka ku saabsan dad aan istalaalin oo aad ugu xanuunsaday koronaha oo ka qoomameeyay in ay qaadan waayeen talaalka waxaan idinkula talinayaa inaad dadkaas dhegaysataan
haddii aad rabtid inaad difaac heshid intaan loo gudbin maalmo caadi ah oo la heegan dheeraad ah waxa wacan inaad hadda qaadatid talaalka la xidhiir degmadaada si aad u ballansatid talaalka cidna kama xanaaqi doonto inaad dib u dhigatay way farxi doonaan marka aad u tagto waxa khubaradu nagula taliyeen in wax yar laga bedelo wejiga saddexaad taas oo aanu samaynay qabanqaabooyinka la isticmaalayo shahaadada koronaha ee qof kasta helayo boos fadhi oo joogta loona tilmaamayo waxaa joogi kara ilaa 5,000 qof markay gudaha tahay dibaddana 10,000 qof waxaa sii jiraya shardigii ahaa in la isticmaalo 50% inta goobtu qaado wax ka bedeladan waxaa laga bilaabayaa sabtida laga bilaabo 12 Sebtembar waxaanu wax ka bedelaynaa xayiraadaha soo gelidda waddanka waxa waddanka soo geli kara ajnabiga ka imanaya wadamada saddexaad ee xidhiidh noocyadan soo socda ah la leh qof Norway degan caruurtaada 18 sano ka weyn iyo waalidiinta caruurta 18 sano ka weyn awoowaha ayeeyada iyo caruurta awoowe ama ayeeyo loo yahay iyo saaxiibka ama saaxiibada 18 sano ka weyn iyo caruurta qofkaas waanu ognahay in dad badan arrimahan sugayeen in badan dadkaas imanaya waa inay ku dhaqmaan xeerarka karantiilka iyo qaadista tijaabada saaxiibka iyo saaxiibadu waa inay codsi u diraan UDI si ay u iman karaan haddaba hadalkan ku wareejinaya Camilla Stoltenberg mahadsanid maalin wanaagsan waxaan tusi doonaa maanta sawirro waxaan ka hadli doonaa 3 arrimood tan koowaad yaa isbitaalada la dhigaa hadda tan labaad caruurta COVID-19 iyo talaalka tan saddexaadna ku talinta talaalista da'da 12-15 sano go'aanka waa la qaatay waxaan haddaba sheegayaa sababaha lagu saleeyey yaa isbitaalada la dhigaa hadda bukaanku sidaad haddaba maqasheen celcelis ahaan uu ka da'yar yahay sidii hore ee cudurka safmarka usbuucyadii 31 ilaa 34 yacni ilaa usbuucii hore waxaa da'da dhexdhexaadka ee bukaanka cusub ahayd 46 yacni kala bar dadka cudurka qaaday way ka hooseysay 46 barka kalena uu ka koreeyay ayadoo ahayd 57 sano laga soo gaaro usbuucii 29aad yacni aad ayuu hoos ugu dhacay da'da badankooda da'da isbitaalka jiifa ma talaalna 167 bukaan ee cusub ee 4 usbuuc ee ugu dambeeyay ee aanu ogaanay xaaladooda talaal 66% ma talaalnayn waa qodobka ugu muhiimsan ee tahay in la xasuusto qaybtan ayaanu ka aragnaa kororka ugu badan ee isbitaal dhigista qaybaha kale way ka degan yihiin xaaladoodu 15% dadka isbitaalka yaala qayb ahaan bay talaalnaayeen 20%na si buuxday u talaalnaayeen dadka yaala isbitaalada ee talaal buuxa qaatay waa dad celcelis ahaan da'weyn da'da dhexdhexaadkoodu waa 75 sano yacni aad uga da'weyn kuwa kale iyadoo 3 daloolkiiba 2 dalool usbuucyadii ugu dambeeyay ay ahaayeen dad ka tirsan dadka khatarta ugu jira jirooyinka waaweyn ee khatarta ah bukaanka cusub ee u dhaxeeya Abriil 17 sano usbuucyadii 31 ilaa 34 waa 9 qof yacni 5% inta muddadaas isbitaalada la dhigay qiyaastii 35% inta la yaqaano dalka ay ku dhasheen ee isbitaalka la dhigay usbuucii 34 waxay ku dhasheen Norway dibaddeeda 93% dadka la dhigay ayaa la yaqaanay dalkay ku dhasheen yacni badankood intii la dhigay qiyaastii 35% waxay ku dhasheen Norway dibaddeeda qodobka kale caruurta COVID-19 iyo talaalka waxay tahay su'aasha guud hadda waxaynu joognaa xaalad ay sii kordhayso in dadka badankiisu si buuxda u talaalan yihiin maadaama aynu weli fursad fiican u haysanno talaalka ayay su'aali ka taagan tahay in caruurta da'doodu tahay 12 ilaa 15 la talaalo iyo in lagu talaalayo hal qaadasho ama 2 qaadasho ilmaha ka yar 12 sano ayaan weli loo hayn talaal la aqoonsan yahay su'aasha muhiimka ahi waa in faa'iidadu ka badan tahay dhibta talaalka faa'iidada talaalku waxay ku xiran tahay tan koowaad inta uu talaalku yarayn karo in COVID-19 ay u jiradaan dadka da'daanahi tan labaadna in uu talaalku keeni karo yaraynta faafista cudurka iyo jirada dadweynaha dhexdiisa si guud markay noqoto dhibta talaalku waa khatarta ah in ay dhibaato caafimaad ka dhalato talaalista
ilmaha iyo da'yarta waxaa inta badan ku dhaca calaamado aad u sahlan oo COVID-19 ah waxaanan ku wadnaa in 20 ilaa 30 boqolkiiba aanay haba yaraatee wax calaamad jira ah yeelan. Denmark qiyaastu intaas way ka sii sarreysaa. waxaa dhici karta ilaa 50 boqolkiiba inaanay yeelan wax calaamado jira ah. Ilaa iyo hadda waxaa Norway la dhigay isbitaalada qiyaastii 140 ilmood oo qaba cudurka COVID-19, qiyaastii 0.4 boqolkiiba oo ah kuwii laga helay infekshinka COVID-19 ee da'da ilaa 19 ayaa isbitaal la dhigay. Waa qayb aad u yar. Celcelis ahaan intay jiifaan isbitaalku waa 2 maalmood, taasoo tilmaamaysa in badankooda degdeg looga saaro isbitaalka. Xataa kuwa u muuqda inay cudur ahaan ugu khatarsan yihiin sida xaaladda caabuqa leh ee misk oo soo muuqan kara 2 ilaa 6 usbuuc infekshinka bacdi, waxaa loo hayaa daaweyn wanaagsan waxaana looga buskoodaa si wanaagsan. Geeridu aad bay u yartahay carruurta. In carruurtu u dhintaan COVID-19 iyana aad bay u yartahay. Ingiriiska waxaa la baaray dhammaan geerida carruurta iyo da'yarta ee 12 bilood ee cudurka safmarkaa jiray. Ingiriisku waa dal uu cudurku aad ugu faafay, geeriduna aad u sarreysay dadweynaha guud ahaan. Markii la barbar dhigo dalalka kale ee Yurub, 25 geeriyood oo carruur da'yar ah ayuu sababay COVID-19. 76 boqolkiiba kuwaas ah waxay horey u qabeen cudurro khatar ah oo loo dhinto, yacni intooda ugu badani waxay qabeen cudurro halis ah. Waxaa lagu qiyaasayaa in halkii milyan ee ah dadka ilaa 17 sano jira ay ka dhintaan 2 qof. Norway waxaa ilaa hadda u dhintay 2 qof oo jira da'da ilaa 19 sano. Haddaba maxaan ka ognahay calaamadaha jiro ee raaga ee carruurta? Calaamadaha jiro ee raaga ee COVID-19 oo qaar ku magacaaban long COVID weli si fiican uma ay qeexin aqoon-yahanada iyo khubarada caafimaadku. Haddii lagu saleeyo aqoontaan hadda hayno, waxaan u aragnaa in khatarta dhaawaca jiro ee raagta aanay carruurta iyo da'yartu ku weyneyn. Cilmi baarista tayada leh ee la sameeyey oo dad badan ka qayb galeen isbarbardhigisna la sameeyey, waxaan aragnaa inaanay ku badnayn dadka da'doodu tahay 12 ilaa 15 sano oo qaba COVID-19. Kuwa jiradu ku dhacday waxaa muuqata inay ka baxday 4 ilaa 12 usbuuc iyo in si tartiib ay calaamadaha jiradu baaba'een. Taa micnaheedu ma aha in carruurta iyo da'yarta qaarkood aanay yeelanayn calaamado raaga markay jirada qaadeen kadib, laakiin waxay u muuqataa inay taasi caadi aysan ahayn. Laakiin taasi waxay sidoo kale dhacdaa jirooyinka kale ee infekshan ahaan loo qaado. Haddaba maxaan ka ognahay dhibaatada caafimaad ee ka dhalata tallaalka ee da'dan? Waxaan hadda aqoon wacan u leenahay dhibaatooyinka caadiga ah ee ka imaan kara tallaalka mRNA ee aynu ku isticmaalno Norway, laakiin dhibaatooyin naadir ah iyo kuwa raaga midna ilaa hadda meesha lagama saari karo. Caabuq ku dhaca muruqa ama kiishka wadnaha la kala yiraahdo myocarditis iyo pericarditis ayaa marar aad u yar la arkaa kadib tallaalka mRNA. Xaaladaha caabuqa muruqa wadnaha waxaa inta badan lagu sheegaa ragga dhalinyarada iyo da'yarta. Xaaladaasu degdeg ayaa looga baxaa, ciday ku dhacdana waxay inta badan ku buskoodaan hal bid gudaheed. Dhakhaatiirta wadnaha ee Norway ayaa ka qayb qaatay qiimeynta xaaladdan caafimaad, waxayna u arkaan in jirada COVID-19 ay khatar ahaan uga weyn tahay khatarta saamaynta wadnaha marka la barbar dhigo tallaalka, iyo in dhibtan ka dhalan karta tallaalka ay tahay inaysan ka hor istaagin in da'yarta la siiyo tallaal. Marka la fiiriyo waxtarka laga sugayo in da'dan 12 ilaa 15 jirka la siiyo tallaal, waxaanu isticmaalnay qiyaas xisaabeed wax lagu saadaaliyo si loo xisaabiyo. Xisaabinta noocaasi waa qiyaasyo shaki weyn ku jiro, taasoo aanu mar walba tilmaano markaan qiyaas xisaabeedyada isticmaalayno, laakiin taasoo jirta haddana waa caawiyaal wanaagsan. Qiyaasyadaas waxa ay tallaalista dhalinyarada 12 ilaa 15 jirka ahi si weyn u yarayn kartaa faafista jirada ee dadweynaha, waxayna keeni kartaa in tirada taalla isbitaalada iyo geeriduba hoos u dhacaan haddii uu yimaado hirka jirada ee dayrtu. Waxaa taas sabab u ah inaanu malayno in carruur iyo da'yar badan ay qaadi doonaan jirada waqtiga soo socda iyo in da'dani ay bulsho ahaan xiriir badan leeyihiin. Qiyaasyada oo dhani way yar yihiin infekshanka halista iyo dhigista isbitaalada 12 iyo 15 jirada. Tallaalka da'dani wuxuu keeni karaa in si la dareemi karo hoos ugu dhacdo jiifka isbitaalada ee miska ee carruurta. Natiijooyinkani waxay ku salaysan yihiin filitaan ah tallaalis 2 cirbadood ee 12 ilaa 15 jirada iyo in bulshada dib loo furo dhammaadka Sebtembar, yacni
arrintani arrin aan suuragal ahayn laakiin aanu doonayno inaanu dib u furino markaan la talinayno tallaalista cirbadda labaad. haddaba ku talinta tallaalista ee da'da 12 ilaa 15 jirada. Carruurta 12 ilaa 15 jirada waxaa loo soo bandhigayaa tallaal. FOE waxay ku talisay in loo soo bandhigo tallaalka koronaha carruurta jirta 12 ilaa 15. waa kuwa dhashay 2006, 2007 iyo 2008 iyo kuwa buuxiyey 12 sano ee dhashay 2009. waxaa sidoo kale la yeelayaa in kuwa buuxiyey 12 markuu tallaalku bilowday sanadkan iyagana la siiyo. waxaanu si ku meel gaara ku talinaynaa in Comirnaty oo ah tallaalka BioNTech Pfizer la isticmaalo, waayo waxaa la leeyahay waayo aragnimo la xiriirta in tallaalkan lagu isticmaalay da'da 12 ilaa 15 jirta, taasoo in aan ka faa'iidaysano aqoonta laga helay Denmark iyo wixii lamid ah ma aha sababtu in aan wax aan wanaagsanayn ku ognahay Moderna. tallaalku waxa uu ku bilaabanayaa hal qaadasho. dib ayaa loo qiimayn doonaa in carruurta la siiyo qaadashada labaad iyo in kale. haddii la siiyana waxaa labada qaadashaba u dhaxayn doona waqti dheer. haddaba waayo hal qaadasho ama hal cirbad? hal cirbad ee da'da 12 ilaa 15 waxay yaraynaysaa khatarta in si weyn loogu jirado COVID, iyadoo isla markaas yaraynaysa khatarta dhibta tallaalka ka dhalan karta ee caabuqa muruqyada ee wadnaha ee inta badan la arko markuu qofku qaato cirbadda labaad kadib. dhalinyarada da'da 12 ilaa 15 waxay si fiican uga falceliyaan tallaalka. difaacooda kadib hal cirbad uu ka waqti dheer yahay kan dadka waaweyn. 12 ilaa 15 jiradu waa da'da guud ahaan ay yar tahay khatarta in isbitaal loo dhigo jirooyinka infekshanka lagu qaado dartood. haddaba maxaan u doonaynaa kala fogaynta? haddii la siinayo cirbadda labaad, waxaa lagu talinayaa in la dheereeyo waqtiga u dhexeeya oo laga dhigo 8 ilaa 12 usbuuc. waa 3 sababood. tan koowaad, in la kordhiyo waxtarka tallaalka. tan labaad, in la yareeyo khatarta dhibta tallaalka. tan saddexaadna, in qiimayn wanaagsan lagu sameeyo aqoonta lagu saleeya arrintan intaan cirbadda labaad la siin. haddaba maxay sameeyeen dalalka kale? dalalka kale ee fuliyey tallaalka 12 ilaa 15 jirada waxay ku saleeyeen sababo kala duwan. qaar waxay ku jireen xaalad ka duwan middan Norway markay noqoto cudurka safmarka oo koontaroladoodu liiteen. qaar waxaa dhibi ka haysatay helista tallaalka ee dadka waaweyn iyo inuu liitay horumarka barnaamijkooda tallaalku. Denmark, Iceland iyo Finland waxay u go'aansadeen tallaal guud oo 12 ilaa 15 jirada ay sababtu tahay si loo kordhiyo difaaca kala qaadista jirada ee dadweynaha. Ingiriiska waxaa in 12 ilaa 15 jirada caafimaadka qaba la doortay in la sugo inta la helayo aqoon siyaada oo la xiriirta faa'iidada iyo khatarta tallaalka ee da'dan. waxaanu aragnaa in dalalka aanu isbarbar dhigi karnaa kala doorteen doorashooyin kala duwan. mahadsanidin. sida ra'iisul wasaaraha iyo agaasimaha macadkuba sheegeen, faafidda ayaa ku badan iskuullada iyo degmooyinka qaarkood, waana in la xakameeyo. hadafku waa in ardaydu aado iskuulka, laakiin meelaha qaar way adag tahay, meelaha qaarna suurtagalba may ahayn. degmooyin badan ayaa noo sheegay in nidaamka TISC aan loogu talagelin bulsho sida hadda u furan oo cudurkuna ku badan yahay. dad badan ayaa tijaabada laga qaadayaa, howlaha raadraacista cudurkuna way badan yihiin. waxa TISC loo yaqaano ayaa weli ah tallaabooyin muhiim ah oo lagu yarayn karo faafidda cudurka. hadda waxaa yaraaday karantiilka waxaana batay tijaabo qaadista. waxaana kordhay qaadista tijaabooyinka. waxaa muhiimad gaar ah tijaabo qaadista ka socota iskuullada xilligan cudurku soo kordhay. waxay sahlaysaa in la joojiyo faafidda ardayda dhexdooda ka jirta, islamarkaana la yareeyo maqnaanshaha xanuunka ilaa inta dad badan oo kale la talaalayo. guddoomiyaha gobolada ayaa soo sheegay khatar ka imanaysa dhanka howlaha TISC iyo degmooyin hawshu ku badatay oo isku wada howlaha talaalista iyo howlaha tijaabo qaadista, karantiilka iyo raadraacista. way adag tahay in la isku wado iskuullo furan iyo faafidda cudurka oo badan. degmooyin badan waxaa ku adkaaday inay faafidda cudurka maareeyaan markii iskuullada dib loo furay. hadda waxaanu xaqiiqsannay in ay habboonayd in degmooyinka la siiyo wakhti ay ugu diyaargaroobaan wax ka beddelkii lagu sameeyey TISC, oo ahayd in tijaabo qaadis lagu beddelo karantiilka marka qofku ka yaryahay 18 sano jir.
hadda degmooyinka ayaanu rabnaa in aanu xaaladan adag ka caawino imika iyo toddobaadyada soo socdaba. waxaa la sheegayaa in degmooyinka qaar u qaateen in hay'adaha dawladdu diidan yihiin in heerka cagaarka ah ee iskuulada lagu bedelo huruud marka xaaladdu noqoto mid adag. aan warka caddeeyo, degmooyin badan way ku habboon tahay inay heerka huruudda u beddeshaan kadib marka ay qiimayn sameeyaan. degmo kasta iyada ayaa og xaaladdeeda. degmooyinka ayaa u xil saaran ka hortagga faafidda cudurka ee degmada ka jira, waxaana hay'adaha dawladdu ku boorinayaan inay isticmaalaan heerarka cagaarka, huruudda iyo casaanka ah marka loo baahdo. weli waxaanu ku talinaynaa in howlaha degmada ee la xidhiidha cudurka loo kala horreysiiyo sidii aanu soo jeedinay toddobaad ka hor. tallaalista ayaa leh mudnaanta koowaad, waa tijaabo qaadista ku xigta, raadraacista khusaysa dadka qofka guriga la degan iyo dadka kale ee u dhow ayaa ku xiga, kadibna raadraacista khusaysa dadka kale ee qofka u dhowaaday. iminkana su'aal muhiim ah, sidee u caawin karnaa? annaga iyo wasiirka caafimaadka ayaa maanta kulan la yeelan doona dhammaan degmooyinka waddanka, dallada degmooyinka iyo guddoomiyeyaasha gobollada, iyadoo laga wada hadli doono sida hay'adaha dawladdu u siin karaan xoojin iyo caawin. waxaanu rabnaa in aanu dhegaysanno aragtida degmooyinka ee ku saabsan sida loo xallin karo xaaladda. waxaanu rabnaa in aanu eegno waxay degmooyinka cudurku ku yar yahay, kuwa dhexdhexaad uu yahay iyo kuwa uu ku badan yahay samayn karaan, waayo degmooyinku aad ayay u kala duwan yihiin. hadafka guud waxa weeye in degmooyinku iskood u xakameeyaan xaaladda, inkastoo loo baahan yahay inaannu isla meel dhigno waxa macnaha xakamayn yahay. marka degmooyinku diyaar u yihiin arrintan, waxaanu soo jeedin doonaa in fududayn kale lagu sameeyo TISC. yoolku waxa weeye in nidaamku noqdo mid u shaqaynaya si ka wacan sida hadda. waxaa ka mid noqon kara in dadku iskood iska qaadaan tijaabooyinka, oo qofku iskii iska qaad kara tijaabo, iyo in qofka cudurka laga helo wargeliyo dadkii uu u dhowaaday, si degmooyinku markaa awoodda tijaabo qaadista iyo raadraacista u saari karaan meelaha khatartu ku badan tahay. arrintan waxa u shardi ah in degmooyinku diyaar u yihiin fulinta istaraatiijiyadan. iminkana waa aniga, sidee ayaa aniga iyo adigu gacan uga geysan karnaa in carruurtu aadi karto iskuulka, in bulshadu furnaato oo xaaladana looga baxo sida ugu dhaqsaha badan? mar kasta niyadda ku hay in kala fogaanshaha dadku weli yahay wax loo baahan yahay, oo uu yahay sida ugu wacan ee loo joojin karo faafidda cudurka. isla markaana sida dhowr jeer la sheegay, waxa wacan in dadka waaweyn ay carruurta ku qanciyaan qaadashada tallaalka iyo inay guriga joogaan hadday xanuunsadaan. waad mahadsantihiin.